cabdikariin xuseen guuleed oo ah musharax madaxweyne oo u taagan doorashada Soomaaliya la filayay inay ka dhacdo sanadka 2021 ayaa waxa uu sheegay in madaxda Soomaaliya laga rabo inay ka garaabaan dhibaatooyinkii uu Somaliland ka geystay taliskii Maxamed Siyaad Barre. Geesta kale waxa uu hoosta ka xariiqay inay arrinta wada hadalladu tahay arrin wax laga qaban karo balse aan si fudud ku dhamaaneyn, waana kan mas'uulka oo ka hadlaya arrintaasi iyo arrimo kale. anigu runtii Somaliland waana ka soo shaqeeyay deegaanada Somaliland ama gobolada waqooyi waana deegaan ahaan ama deganaayo muddo 6 sano ayaan deganaa aad iyo aad baan duruufta halka ka jirto iyo dadku waxa ay meesha ay ka imaanayaan aad baan u garanayaa markii iigu horeysay oo aan Hargeysa tagay waxay ahayd 94 samafal baan u tagay 94 xilligaas iyo xilliyo la mid ah qofkii aan Hargeysa tagay reer Somaliland uma garaabayo magaaladaas hal guri oo ka taagnaa ma jirin maanta aan tagay aniga ayada dhanna waxay ahayd burbur baaba iyo dugaafada cadow banaanka ka soo weerarayna saas kama dhigin magaaladaas waxa sidaa ka dhigay waa ciidankii qaranka dabaabaadkii qaranka diyaaradihii qaranka sidaas ka dhigay qofka marka aan duruuftaas iyo dadkaasi meesha ay ka imaanayaan iyo waxa gaaray aan garanayn uma garaabayo qadiyada iyo xajmigeedii buuxdigeedana ma fahmi karo anigu marka maalintaas ay saas u burbursadeenna waan tagay kadibna muddada intaas nin ka shaqeynayay oo dadka dareenkooda hadda isku bedelayay og ayaan ahaa waana degay oo muddo 6 sano ayaan deganaa laba waxaan kaloo runtii ku faraxsanahay inaan geedi socodkii wada hadallada ee Soomaaliya iyo Somaliland wasiirkii daadiinaya muddo 2 sano ku dhow inaan ahaa aydan runtii aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay waxay labadaas arrimood bay dhaxalsiis ama xogaadnimadaas hore ama wada hadalkii daadiintoodii waxay dhaxalsiis laba arrimood koow qadiyada Soomaaliya qadiyo la xalin karana inay tahay dhinaca kalena qadiyo aan sida loo maleeyay u sahlanayn oo u baahan in wada hadal iyo process iyo xogaanimo xoog badan lagu xaliyo inay tahay ayay dhaxalsiis saadaradeed waxaan isleeyahay qadiyadaas oo qofkii xalin lahaa inaan aaminsanahay xogaanimo ku xalin lahaa dareen ku xalin lahaa aqoon iyo dad aqoon ku xalin lahaa inaan ahay ayaan aaminsanahay waan la xalin karaa wada hadaladii aan hogaaminayo daadiinayana waxaan aaminsanahay marka qadiyada iyo buuxdigeeda loo fiiriyo iyo meesha aan keenay in guulo waaweyn laga gaaray ayaan aaminsanahay laana guusha waxa u horeysa kalsooni abuur ayaa guusha u horeysa kalsoonidiina waa abuuray annagu wada hadallada markaan ku jirnay waxaan ka imaanaynay 3 arrimood ayaan ka imaanaynay waxaan isleeyahay maamulka hadda joogana 3 arrimood cagsigeedu ka yimaadaan waana meesha baasha ay laada anagu koow waxaan ka imaanaynaa dadka reer Somaliland dad lagu tacadiyay inay yihiin oo tacadigaas dhibka gaaray in looga garaabo mudan laba waxaan ka imaanaynay nabadda iyo xasiloonida iyo horumarinta Somaliland inay mas'uuliyad naga saaran tahay sida dalka intiisa kalaba ay mas'uuliyad naga saaran tahay nabadiisa iyo xasiloonidiisa iyo horumarkiisa saddex waxaan ka imaanaynay in reer Somaliland isku duuban oo shacab iyo maamulba inaan wada hadal la galno ay wada hadalkaas ku yimaadaan ayaan ka imaanaynay waxaan isleeyahay maamulka hadda jooga oo barakeysan saddexdaas cagsigeedu ka yimaadaan koow horta reer Somaliland inaan lagu xadgudbin camal u dhaqma oo dad dib loo geystay dibkaas intuu rabo waxa la ekaadee uma arka kamana muuqato maalin dhaweeyay madaxweynaha warkii markuu Addis Ababa ka yimid uu jeediyana ana waxaan u haystaa war oo meel hoose ka yimid inuu saxeen war barashada kale ku yimid u haystaa aniga number 2 nabadda iyo xasiloonida iyo horumarka reer Somaliland inuu mas'uul yad inaga saaran tahana ma muuqato waxaan ognahay 4 sano ee hadda tagtay in reer Somaliland cunaha lagu dhigay oo nabadooda iyo horumarkooda iyo mashaariicda horumarineed shuruudo iyo cunaqabateed xoog badan lagu soo rogaan ognahay qodobka saddexaad oo ugu dambeeyo waa qodobka ah in
reer Somaliland shacab iyo maamul ayagoo wada jiro oo duuduuban wada hadal lala galo cagsigeedii in dadkii la kala furfuro oo la kala daadiyo oo rijin iyo qabiil iyo beelbeel loo kala daadiyo ayaa moodaa maamulkan inuu ka door biday ayagoo midaysan inuu maaragtay uu la hadlo hal maaha rabaa inaan kusoo gabagabeeyo adoo mahadsan maana maamahooyin badan ah nin reer galbeed ah galbeedka waxaan ka wadaa galbeedkii oo kama wado dunida waa galbeedka Soomaaliya ayaa ceel buu shubayay ceelkii buu raggii la shubayay oo kaalimada kala taaganaay buu dhalay kaalimadii uu marba kaalin tagaa wuxuu isleeyahay ama ninka horaha ama ninka ceelka ku jira ama midka wadaanta iyo dalowga ayaa ama dhaliishu tahay marba kaalin buu tagay wali dhaliishii waa taagan tahay hooguhu wuxuu aaminay asaga ma ahay qof kale oo hawl haya ama hawl qaban kara inaysan jirin ayuu aaminay markaa wuxuu yiri allow yaa kala jara oo dhaxda idhiga oo gunta idhiga oo geeska idhiga mid kale oo maqlaya wuxuu yiri hoogaa asoo isku yaal buu waxtari way soo la kala jarjaray wareer Somaliland ayagoo isku duuban ma heli karaa ayagoo la kala jarjaray maxaa u raadinayna